isbitaalka takhasusiga iyo tacliimiga ee Dalmar waxaad ka heli kartaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran, dhaqaatiir takhasus ah iyo howlwadeenno u nugul daryeelka bukaanka. Isbitaalka Dalmar waxa uu isbitaalada kale kaga duwan yahay hal lambar oo kaliya ayaad kula kulmi kartaa marka loo baahdo dhowr dhakhtar oo kala takhasus ah. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan sida qaybta bukaan socodka oo kugu diyaara qaybta daweynta iyo qaliinada indhaha, qaybta cudurrada guud, qaybta qaliinada guud, qaybta qaliinada laysarka iyo qaybta qaliinada qurxinta, qaybta dhalmada, qaybta raajada oo aad ka heli karto raajada afka iyo ilkaha, qaybta keliyaha iyo keliya sifaynta, qaybta dhagaha oo lagugu soo kordhiyay qalabka cabirka dareenwadayaasha maqalka, qaybta ilkaha iyo qurxinta afka, qaybta bukaan jiifka, qaybta emergency-ga oo dhammaystiran, qaybta daryeelka xoogga leh ICU. Isbitaalku wuxuu leeyahay 2 saalo qalin oo casri ah, qaybta shaybaarka, farmashiyo ay yaalaan dawooyin tayo leh oo lagu keydiyay cimiladii loogu talagalay, dukaanka ookiyaalaha oo aad ka heli karto ookiyaalaha aragga, kuwa xaragada, ookiyaalaha cadceedda, kuwa iftiinka, ookiyaalaha carruurta iyo kuwa dadka waaweyn intaba. Sidoo kale isbitaalku wuxuu leeyahay cafeteria aad ka heli karto cunto fudud iyo cabitaan aad u macaan. Si aad u hesho faahfaahin dheeri ah, wac lambarka gaaban 2666. Isbitaalku wuxuu ku yaalaa degmada Hodan, wadada ka leexata wasaaradda arrimaha dibadda. Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.